wadada guurka loo maro qofku geed meel ka baxay iska soo taagan ahaan maayo see u guursanaysaa sidee guur sax u maraysaa wadadee u maraysaa si aynu u yara fahanno waxaa jiray qabla al-islaam waxyaabo ankixa ah ama guurar toban ku dhow adaanay toban ba ahayn oo shareecadu hal mid mooyaane inta kale ay baabi'isay oo mancisay oo tirtirtay baa jira waxaa ka mid ah guurarkaas qaarkood lagama sheekayn karo afka lama soo marin karo kutubta ku qeexan laakiin mid iyo laba haddaan ka sheego waxaa ka mid ah qofka dumarihi ragga deegaanka ay la degan tahay ayay dhex mari jirtay oo la kulmi jirtay marka ay caloosheeda ilma galaan ayay intii rag ahaayee gacan marisay bay u yeeri jirtay markaasaa la soo taagi jiray kii ay rabto bay oran jirtay ka iga soo qabta kaasaa ilmahana la siin jiray saasana la isugu dari jiray qayb waxay ahayd qabla al-islaam wada ay guurka u maraan bay ahayd gaaladii jaahiliyada ahayd waxa ka mid ahayd in haddii alla idmayo ninku xitaa markuu reer yeesho uu maxaan ku raada doonayo inuu nin geesi ah dhalo dad waxay ahayn colaad iyo balaayo ku salaysan waxay sameyn jireen ninku islaantiisu oran jiray heblaayo markaad xaydka ka maydhato haddii qoyska meesha degan iyo deegaanku uu ku jiro nin geesi ah oo fardafuul ah hebel u tag la joog marka aad soo rinto oo uur soo yeelato uu soo uureeyo ii kaale si wiil isagoo kale aad iigu dhasho dariiqii ay ku dhaqmi jireen jaahiliyada guurkii ay ku noolaayeen qayb ka mid u ahaa oo shareecadu ay xarimtay shareecadu markaan labada aan ku soo gaabsado waqtigaa iska koobane kuwa ka xun oo dhib badanna way lahaayeen laakiin labada aan ku daayo tayib si aan u tilmaamo wadada saxa ee guurka ah markaan taa jaahiliyada ka soo gudbo waxaa jira dadkeenan maanta jooga wadooyin baa jira wadada saxda ah ka lexlexsan soo quraanka kuma idinaan arag wa anna hadha sirati mustaqiman فلا اتبعوا إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بإلهي رسومه شدكيغي وكا أدومهيغيو راعة أو قادة محال لكن لو حكي ولا تتبعوا السبل ودوين ككوع وعنايا يكلح لحنايا ودد الصحدة هالراعينا سو إلهي مورا هداد رعدان محال دعايا والله ما يسان بإلهي سبحانه وتعالى wadada marka guurka saxiixa ah loo maro waxa jirta wadooyin dadka guurdoonka ah qaarkii ay maraan oo ay ku ambadaan oo guurku kaga xumaada jira saan marka u tilmaamo cudurka baan sheegayaa markaynu ogaano jaahiliyadii hore si dawada guurka wadada saxda loo fahmo marka waxa kamid ah wadooyinka khaldan qofka dumar ay dhalinyarta ama qofka dumar iyo ninku inay isbartaan oo guur inay isguursadaan laga wada sheekaysto lagu heshiiyo oo dabeetana ay u dhaqmaan sida laba isqabo kala loo wada dhaqmaya leesmana qabo ogow soo isma guursan doonaha sida dad isqabo oo kala loo wada sheekaysanaya loo kala asturan maayo loo wada hadlaya hadalla aan banaanayn inaan la iskula hadlin baa la iskula hadlaya waa khaladka jira ee wadada guurka saxda loo maray khaldaysay kamid waxa kamid ah taamid ka sii xeel dheer in la isku fogaado waqti dheerna la sheekaysto 5 sanadood baa la sheekaysanaya ma dawlad baa la dhisay 5 sanadood waxa loo sheekaysanaya 5 sanadood intee caruura dhalan lahayd qiyaas hadii laba sano la kala koriyo xitaa soo laba caruur ma dhalateen 5 sano la sheekaysanaya wala saaxiibay waxa way sawirra la iska dhirginaya la isu diraya cashooyin baa la wada aadaya waxaan ku iraadaa si fiican baa loo sheekaysanaya inta waxba la isu sheer gareynaya in waxba ka garanaynin inta waa la isku fogaanaya ilaa marka dambe ay dhacdo gogol dhaaf khatar inuu ka dhaxdhaco oo gabadhii is aragto iyadoo khalad ku dhacday caloosheeda ilma galeen hadhowna mushkiladaasi si loo xaliyo la garan lahay waa israaban dadkii way jecel yihiin iskuma inkirsana waxa meesha dhex maray laakiin wadadii baa xumaatay waqtigii baa dheeraaday aw shaydaanna waa ka faa'iideystay in badan oo kamida waxaanu aragnaa oo qadaheeda la keenaa reer inta gabadhu saa ku uuraysatay hooyadeed iyo aabaheed ay ka qarinayso ninku is og yihiin
haddaba ay dhahaysaa boobsiyo degdego idoono ilaa markii uu isku ogaatay uurkii kadib uu doonanayaa aabbiyo hooye ma oga isaga iyada isla og waa la mehrinayaa ilmihii saasuu ku dhashay isagoo bikayri sharci ah hadhow waxaa dhacaysa in qofku kuu yimaado ku yidhaahdo 2-3 carruura ii jooga sheekh laakiin ilmo saasuu iigu calool galay aniga islaantayda og cid kale ma oga ilmahaasee xaalkiisu noqonaya dee adigu maadan dhalin weeye shareecadu maadan dhalin waa meher ka horrays soo ma haddii maxaa sababay marka arrintu inay saa u dhacdo waddada khaldan ee guurka aad u martay ayaa waxay tahay qodobka sababay in sidaa wax u dhacaan dariiqada saddexaad ee khaldan waxaa ka mid ah dariiqo ninka iyo gabadhuba ay isticmaalaan ragga iyo dumarku ay isticmaalaan qofku wuxuu samaynayaa xidhiidh fara badan ninku gabdho badan buu la xidhiidhaya miduu arkaaba lambarka ii qor buu leeyahy gabadhu kay aragtaaba waa la xidhiidhaysaa ama social media la isku arko ama goobaha waxbarashada ama deegaanka la wada degan yahay markaasaa gabadhu 10 nin bay isku dhex wadaa ninkana 10 dumar isku dhex wadaa markaad tidhaahdid maxaa dadkan isugu soo shirinaysaa masalaad baa tukinaysaa dadkan faraha badan maxaad u wadaa maye midkaygii baan kala dhex baxayaa bay ku leedahay kaygii baan kala dhex baxaya isaguna wuxuu ku leeyahay taydii baan ka xulanayaa saasuu u wadayaa waa baarbaarayaa haddii aan la idmayo arrintaasi marka waxay keenaysaa marka dambe cudur waswaas la yidhaahdo ninkiina waswaas baa ku dhacayo dee weligii ma ku soo jira 10-20 gabdhood in la sheekaysto midba uu ka baxo ma qancaya marka dambe waswaas baa ku dhacaya gabadhina saasaa waswaas ugu dhacayaa inay ku guumaysoodo oo guurba bayshaa dhici karta ilaa waxaan waddadii baa ka xumaatay dariiqada afraad waxaa ka mid ah dariiqo qofku inuu waan guursanayaa guurdoon baan ahay inuu qofku yidhaahdo isagoo laakiin uga jeeda ismuujin bulshada iska dhex muujiya gaar ahaan gabadha qurux badan ilaahay uu siiyey oo jidhkeeda ama wejigeeda iyo muuqaalkeeda aad u qurux badan oo isleh gabdhaha xaafadda ama kuwa istaqaanaan ama kuwa badan baad ka qurxoon tahay si quruxdeeda inay raggu ka daba dhacaan ay u muujiso ayay ninba markay xiriir la soo qaado bay dhahaysaa maya waa imaadan qancin raalliga ahow imaadan qancin si la isugu sheego la yidhaahdo waa nin diid nin kasta waa diido markuu la hadlay aakhirka waxaa ka dhaca xanuunnaa waxaa ku dhaca il baa ku dhacaysa ama jiman baa gelaya waa la cawriyayaa ama mashaakil kalaaba ku imanayo iminka si kalaaba la isu dilaayo waa la isjarjaraa soo maaha dee hawshii waaba soo dhaafto waaba la isdilayaaba iminka mashaakilkaa marka waxyaabaha keenay ka mid wax qiso yaab la dhacday waa dhexdeerahoo nin baa dadkii asxaabtiisa ahaabaa wada guursaday dhallinyaradii markaasuu wuxuu yidhi war meeshii lagaaga tegiyey dee aadna maad guursat guurna markaa diyaaru ma aha marka wuxuu yidhi guur beenbeena samee yacni meesha wax la marayaan kuu sheegaya asxaabtiisii buu la tegey waa la hadlay wuxuu nime waa guursanayaa gabarh baan heshiinay hawshii waa dhammaynayaa hodheel buu kireeyey qaacasaan oo kale ah lacag baa la bixiyey dad baa la ballamiyey qadaa la ballamiyey waa la qadeeyey hadda aroos ma jira ogow waxaas waa been ninkaas samaynayo keliya muxuu rabaa inuu dadka u sheego saaxiibadii maadaama ay guursaday inuu yidhaahdo waa guursaday buu rabaa social mediaha la dhigo qadadii markii loo soo fadhiistay oo la leeyahay dee waa la qadaynayaa dadkii baa imanaya xaggii gabadha reerkoodii oo qaraabadiisii buu ballamiyey oo agwaada iyo khiyaar baa la ballamiyey oo wax soo socdo mal telefoon beenbeen uu la kacaya xagee la soo maraya waxaan kana marba dad waa la fahmayaa moogta ilaa laysuma dhigi karo filmaane war maxaa khaldan dee waa sidee adigu ninkii wuxuu yidhi raalli ahaada arrintii waxaa la yidhi soomaaliya meherku ka dhacaya iska qadeeya duceeyo iska taga soomaaliya meherku ka dhacaya meher jira maaha wax jira maaha arrintii marka sidii kabacdi waxaa la ogaaday inay been tahayba walaalkii baa la wareystay ehelkii dadkii wal ka warram xaaladaas ninka odaga waa guursadayoo keebaa guursaday ninkii hebela war wuxuu guursaday ma jirtaa beentiis weeye muxuu saa u samaynayaa wuxuu yidhi saaxiibaday baa wada guursado waxaan is idhi yaan la odhanin dee ninkii cidluu ku haraye asna waa guursaday dariiqooyinka khatarta ee beenbeenta ah ayay ka mid tahay taasi waxaa ka mid a dariiqadaha khaldan dariiqad qofku inuu yidhaahdo sabab la'aan waan guursanaya insha allah waan guursanaya dib unbuu u dhigayaa guurkii dib unbuu u dhigayaa waxaa ka mid a dariiqadaha qofkii inuu guur rabo gabadhii inay guursato way rabtaa hooyo noqoto mas-uuliyad qaado ninkiina waa rabaa inuu guursado mas-uuliyad qaaduu rabaa laakiin way baqayaan isagii waa baqayaayo gabarh markuu arkaa baaldi biyaa lagu shubaya hadli kari maayo waa qoyayaa gebigii saas u gariirayaayo hadli kari maayo
haddii loo keenana indhahaasu ka eegaya haddii maba hadli karo waa ka baqaya wuusan rabaa guurkii iyadina waa rabtaa guurkii way ka baqaysaa waa dariiqadaha keena in qofku guurka ka habsaamo waa in marka dadka dad u xiga intay fahmaan dhiirigeliyaan ka dhabeeyaan arrintaas oo kale intaa haddaan kaga baxo dariiqooyinkaas dariiqada saxiixa waxa weeye marka ugu horeysa horta inaad guursato niyeyso inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa horta waxaad niyeysataa guur xalaala oo wanaagsan oo xaqa inaad guursato ilaahay weydiiso niyeyso zawj xalaala alla inuu ku siiyo subxaanahu wa tacaala arrintaasi marka waxay keenaysaa ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala ku taageero oo ku garab galo nebigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam saddex qof ilaahay baa caawiya annaakixu alladii yuriidu alcafaaf waxaa ka mida qofka guursaday ee doonaya guurka inuu ku dhowrsado ilaahay baa caawinaya buu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayh ilahay marka wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم markale alla wuxuu leeyahy fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa hulaatha wa rubac guursada ragow dumarkii labo iyo saddex iyo afarba u guursada ayga raalli ahaadeen islaamaha aan ogoleen laba guurka iyo saddex guurka laakiin waa aayad quraan hadda waynu sheegaynaayo waa xaq marka ilaahay wuxuu leeyahy laba iyo saddex iyo afarba haweenkii ha loo guursado ha la dayactiro oo ha lagu dadaalo gabdhihii in la hooyo nabigu wuxuu leeyahy sal allahu alayh wasalam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'a falyatazawaj dariiqada ku xigta waxa weeye qofku inuu haddii aan la idmaayo gabadhu ka fiirsato ninkay guursanayso ninkuna gabadhu guursanaya ka fiirsato waxaynu aragnaa rag intay yimaadaan odhanaya gabar qur-aankii baratay oo diin leh oo asturan oo saasa ayaan rabaa dee adiguna sidaa noqo adna nin wanaagsan oo diin leh oo qur'aan yaqaano cibaadaysanaya noqo gabadhu ninkii ha ka fiirsatay guursanayso ninkuna gabadha uu guursanaya ha ka fiirsado rasuulka meesha ugu muhiimsan ee uu taabtay waa maxay fadfar bidaati diin taribat yadaak ku guulayso gabadha diinta u saaxiibka ah wax kasta way gaboobayaan quruxda iyo maalka iyo qofku waa gaboobaya laakiin maxaan gaboobayn diintu ma gaboobayso qofkii gaboobay xitaa diintu way la gaboobaysaa isagun baa gaboobaya laakiin diintii waa tan weli miyaad aragteen salaadii waa yeel bay noqoto 100 sano la tukanaya waxa oranay salaad waa yeela iyo soon waa yeela iyo xaj waa yeela ma aragteen idinku diintu ma gabowdo laakiin quruxdu way isbedelaysaa oo gaboobaysa oo qofku waa gaboobaya oo waa dhimanaya qofku laakiin diintu waa sideedii marka gabadhuna nin diin leh raadsato rasuulku ninkii saxaabiga u yimi wuxuu yiri gabadh baan guursanaya rasuulkii lama iska eegtay gabadhi maya oradoo iska soo eeg reerka ansaar la yiraahdo way indha yaryar yihiin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadda inta adeerad gabadh indha yaryar baan guursaday haddaba iska soo eeg waa soo tagay buu yiri dushaasan ka eegay gabadhii ilaa aan u bogay wax guurkeeda igu yeera dabeetana aan guursaday waxa kamid ah dariiqada saxda ah si sax in guurka loo doono gabadhii weligeedii la weydiisto iyadu markay ninkii heshiiyaana ay tiraahdo i weydiiso aabahay hadduu nool yahay ama ciddii markaa walaayada u haysa maxaa meeshii ka baxaya in la ismasaafaysto iyo baashi kale khatarta ahayd oo qodbasirada ahayd waa meesha ka baxaysa adiga ilaahay baa ku abuurtay ku muujiyay maxaa sanduuqa hoostiisa ku geliyay si caadi ma u guursatay adeer aniga ilaahay ima qarin hay qarin dheh caadi ii guursada islaamku arkayo maqlayo reerkayga iga doon laakiin waa ku guursanaya mustaqbal baan ka leeyahay laakiin armaajada hoosteeda aan kugu guursado hoos aan ku qariyo adeer ilaahay ima qarin dheh ina hebel baanahay ilaahay ima qarin adoonta ilaahay u tukato soonto salaado la yaqaano oo socotaanahay marka dee gabar hawa ah oo la arkaynin aad qarsato raagsadhe laakiin anigu qof muuqdo soconayaan ahayd hadduu ku yiraahdo waa ku qarinaya ninkaas waa ku qaribaya iska ilaali hadduu daacad yahay si cad buu ku soo guursan lahaa qodobkaasina waa qodobka aynu baraarujinayno ee guurka saxda ah ee shariicadu ay tilmaantay la nikaaha